munaasabad qalin jabin ah ayaa magaalada Baardheere ee gobolka Gadow waxaa loogu sameeyay ku dhawaad 30 arday oo jaamacadda Green Hope ee magaaladaasi ka bartay xirfadda caafimaadka. wariyahayaga Cumar Cabdiruus Axmed ayaa warkaasi Baardheere ka soo diray. xafladan oo ahayd mid ay ku qalin jabinayeen 34 arday oo dhameystay qaybaha kala duwan ee caafimaadka isla markaana ka qalin jabiyay jaamacadda Green Hope University xarunteeda degmada Baardheere ee gobolka Gadow ayaa maanta ka dhacday degmada Baardheere. xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf aad u ballaaran odayaal dhaqameed, haween, culimo diin, waxgarad, mas'uuliyiin ka socday maamulka degmada Baardheere. gaar ahaan gudoomiyaha degmada Baardheere Mudane Cabdullaahi Nuur Xasan Cadow, ku-xigeenkiisa Ismaaciil Sheekh Cabdi Qorax Koofi, gudoomiyaha arrimaha bulshada Xuseen Cabdullaahi Xalane iyo sidoo kale marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah barayaasha jaamacadda Green Hope University xarunta Baardheere iyo maamulaha guud ee jaamacadda oo munaasabada ku sugnaa. Ateri aspect marka laga eego dhawalna kama calin ahaan waxaan ahay bara ka mid ah hadeer barayaasha ka mid ah jaamacadda Green Hope laanteeda Baardheere. ummadda alxamdulillah ilaahay maanta dhan walba ka horumarsan tahay caqli ahaan iyo garaad ahaan ummaduna waa ay horumartay marka waxyaabo badan iyo dhinacyo badan laga eego bulshada wax badan bay soo fahmeen hadeerna waxaanu rajaynaynaa inta ay fahamsan yihiin in ka badan inay fahmaan oo ah in jaamacaddii Green Hope oo xamar ku taalay branchigeedii maanta Baardheere arday alxamdulillah inoo qalin jabinayso ay maanta munaasabadano aan u qabanay iyaga dartoodii. marka alxamdulillah ilaahay ku mahad celinayna arintaas marka doo hergashay ardada maanta public health-ga ka baxdo 10 normal non formal ayaa jira asaga lama sheegan oo maleen non formal ma jiro isad waa jira arday non formal oo 5 arday oo maleen ya waa yarinayna non formal ku jiro adult education waxa ku jira nursing oo 7 waxa ku jiray mataqaana nutrition ka oo 10 public health oo 10 public nutrition oo 10 public health oo 10 non formal education wax barasho adaltiga la yiraahdo oo 5 iyo nursing oo 7 waxa way marka intaas maanta guul idii soo yeeto annagu ujeedkeenu ma ahay markaan Baardheere soo aadaynay inaan ka helno lacag aan guri ku dhisano ama xaj ku aadno laakiin ujeedkeenu wuxuu ahaa inaan ka miro dhalino waxaan bilownay iyadoo ay ku soo gaartay halkan ilaahay maadtiis barashuur jaamacaddu lahayd xamar lagu dhax tuuray rag kamid soo qaadeen arday kamid ah markii inta ku akhriyeen ay noo yeereen contactiga heleen noo yeereen noo bandhigeen insha Allah inuu baahan yahay annaguna aan u ballan qaadnay inaan u siino ku dhameystirno sidii macallin Aweys u sheegay horay 4 bilood iyo ay macallaan ay ka dhiganayaan banaanka iyo 10 aan u soo tuurno iyo buugaagtooda bishii 4 markay dhamaatay waxaan u keenay imtixaankii semester 1 ka aan u keenay aniga macallin kale waa ka qaadnay waa ogaanay waxbarasho u baahan yihiin tibaan u laabanay marka ilaa yiraahdo waxaan xoog ka saarnay sidii aan ugu mardal lahaynay ee naga noqon lahayn annaga nafteenu xiiso iyo waa bilowdeen bal hubiyo hadafkeenu waa markii in saacadan saa u fariistaan artiga qalin jabiday Baardheere annagu ma siino arday baaj loogu talagalay diblomaasiyan laakiin waxaan siinaynaa iyaga maadaama gobolna ay yihiin shaqo ay soo boodi karto fildiga uu lahaa in wax ku barto hadda waxaa meesha fadhida 3 qaybood oo ah public health iyo nursing iyo nutrition-ka annagu haddaan ardadii halkaas yani barnaamijkan hawshooda isugu jiray dhowr faculty ama ha u badnaatay health science-ka qaybta health science-ka ayaa hadda malayna faculty-na hadda graduation samaynayo muddadii uu hadda soo sheegay macallinka October 2015 ilaa hadda raggii hadda hawshoodii kamay saharin sidii ay ahayd bay waxbarasho u wateen marka hore waxa lagu bilaabay barnaamijkan distance learning oo ahaa yani macallin lama jirin yani qayb maamul oo Baardheere u baa hawshan waday waxa ilaahay noo fududay markii dambe kullu ilaahay fadligii iyo nabadii ku noqotay iyo nabadgelyadii iyo qaabkii iyo yani tadawurka isbedelayo in la furo base waxbarasho oo xarun compound oo Green Hope ay leedahay ayadoo laga yaabo inay jiraan jaamacado kale. dhanka kale waxayna goobta ka hadlay dhammaan marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabada odayaal dhaqameed, haween iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoona ku ammaanay dadaalka ballaaran ee ardayda soo galeen. waxay sidoo kale ku booriyeen ardayda inay sii wadaan dadaalkooda. mas'uuliyiintii ka socday maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gadow gaar ahaan gudoomiyaha arrimaha bulshada Xuseen Cabdullaahi Xalane iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Baardheere Ismaaciil Sheekh Cabdi Qorax Koofi ayaa goobta ka hadlay waxayna sidoo kale u hambalyeeyeen dhammaan ardayda iyagoona ku booriyeen in ardayda ay si laabaan dadaalkooda waxbarasho
waxaana munaasabada soo xiray gudoomiyaha degmada Baardheere Mudane Cabdullaahi Nuur Xasan Cadow oo sheegay in ay diyaar u yihiin sare u qaadida waxbarashada deegaanka. salaan kadib sida hore loogu sheegay jaamacadan Green Hope waa jaamacad weyn laakiin faraceeda Baardheero maanta ay ka maxaan ku raadayay ay nasiib u heleen in ay ardaydan hor fadhido ay ka qalin jabiso oo maxaan ku raadaa horumarka asaga ammaan baa lagu gaarayaa beeraha aragteen iyo maxaan ku raadaa aan leenahay webigan jubbo cid nala khayraad lag ma jirto waxaan u malayn degmada Baardheer beero fara badan baa hoos yimaado ama adablale ama baalkigi leh haddaan maxaan ku raadaa isugu tagno oon horumarino abaar baa jirta iyo raashin baa loo baahan yahay WFP in loo qayliyo ma imaanayso waxaa la rabaa marka inaan aad u dadaalno haddana kulley xafladii shahaadooyinka la guddoonsiin doona ardayda aad iyo aad baa u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wasalaam. ugu dambeyntii waxaa goobta shahaadooyin lagu guddoonsiiyey dhammaan ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Green Hope University xarunteeda Baardheere. waa sidee dareenka ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Green Hope University waa kuwan ardayda oo ka hadlay shucuurtooda maanta. alxamdulillah aad baan u faraxsanahay maadaama aan ka qalin jabiyey university shahaado aan ka qaatay Green Hope University aan shahaado ka qaatay aad baan u faraxsanahay waxaan hubaa markii aan bilaabahayay dadkii maaragtay aan isla bilownaan isku ogeyn in ay maaragtay hadda ka shalaacayaan oo ila bilaabin ha noloshayda wax badan baa iska bedelay aad iyo aad waxa weeye oo aqoon baan yeeshay aqoon baan helay waxa weeye faa'iideysta ayaan leeyahay faa'iideysta jaamacadda laga faa'iideysto. Umar Idris Ahmed TV-ga dawladda Jubbaland Baardheere.